beel ka mid ah beesha degta degmada Garadga galbeedka gobolka Sanaag ayaa saaka 3 magood ku wareejiyay beel ay walaalayihiin oo wada degaan gobolka Sanaag iyo gobolka Saraar waayeelkii waxgaradka iyo cuqaasha 3 beelood ee magta la kala wareegay ayaa ka soo qayb galay malashi lagu kala wareegay magta ugu horeyn baa caaqil xirsi diiriye oo isagoo caaqilka wareejinaya magtan ayaa u mahad celiyay 3 beelood ee kala wareegay diyada sida hagar la'aanta ay wala wareegeen sidoo kale waayeelkii waxgaradka iyo cuqaasha 3 beelood iyagu magta la wareegay ayaa uga mahad celiyay beesha magta soo bixisay waan mahad u naqaynaa marka hore waxaan kaloo mahad labaad u naqayaa tolkan halkan isugu yimi ehelka oo isku yeeshay magtaasoo ahayd 130 halaad oo labadan arday ee imika halka wada taagan ay maanta hadhaageedii kala qaadanayaan 130 hore loo qabay 60kii dambena maanta ayuu halkan lagu bixiyay oo aan ku wareejinaynaa Ali Maxamed iyo reer Iidle baa ku kala qaadanaya sidaasaan meeshuna waa halkan waxa tuban 3 magood ayaanu hadda maanta halka noo tuban laba mid hore waanu qabanay oo waanu bixinay midii labaadna waa tan midii saddexaadna bariba ilaa mag adigu qadar alla ku timi baanu ku kala gudoomanayna qolada Maxamed oo mahad celinayaa wixii oo dhameystiran aan jaqjaq ahayn bay maanta keeneen waa mahad celinaya hawlaha oo magahana waa ku badan yihiin kana wax la yiraahdaa Maxamed niman farax biciidaha oo reer ilaa walagood baa noqdeen wax la yiraahdaa Maxamed hawasida annagana waligeeba waa dhowr biciidaan nalagu sheeg waxna la yiraahdaa Maxamed labada reer ee Maxamed way kala gudoonteen inantii marxuumada ahayd ee karshiq gaarigu ku jiray magteedii hadhaageedii alaykum asalaam haddii aanu nahay beesha Ali Maxamed Xasan Aadan Ali Maxamed oo aanu ku lahayn haddii ay xugmayay mag dhan 130 halaad Maxamed reeriidi waxaanu ka qaadanay barkii hore uga haynay 60 halaad 70 halaad maanta 11kii bishii shanaad 2020 waxaanu ka qaadanay 60kii dambe sidaasna aan waxba ka lahayn waxa weeye waa la kala gudoontay in waxa weeye magta la iska bixiyana diinta ka mid tahay aad baan ugu mahadnaqaynaa waayeelkaas waxa weeye isku hawlay isku xilqaamay ee soo ururiyay xoolahaas iyo kuwa sida fiican uga gudoomay aad buu mahadsan yihiin wajazaakumullahu khayran maayirka degmada Garadga Mudane Faarax Aadan Ciise oo soo goobjoog ahaa madashi lagu kala wareegay 3 mag ayaa u mahad celiyay dhammaan beeraha magta siinaya sidoo kale ugu baaqay dadka deegaanada hoostaga degmada Garadga in iyaguna iska bixiyaan diyooyinka lagu leeyahay maadaama uu yiraahdo magtu tahay waxa lagu kala samro isla markaana keena xasiloonida iyo nabadda ilaahay waxaan ugu bedelo qolada qaatana ilaahay ha u barakeeyo sida la sheegay halkan maga far badan baa lagu bixiyay waxa waa magtii saddexaad ee toddobaadkan gudihiisa ay beeshana ay bixiyaan marka waxaan leenahay dadkana aad baan ugu baraarujinaynaa in dadka kiisaska leeyahay ay lagu leeyahay ay iska bixiyaan oo ay magaranaysaa dadaal sameeyaan si magaranaysaa xasiloonida iyo nabadda loo ilaaliyo marka aad baan ugu mahad celinaynaa labada beeloodba sida wanaagsan ay u shaqeeyeen waa mahadsantiin waa madar sare warbaahinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland Garadga.